Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Moonlight Academy and welcome to our today's lesson, which is lesson 8 math. In our today's lesson, we are going to learn addition. Ardayda qaaliga ku soo dhawaada Moonlight Academy kuna soo dhawaada casharkeena maanta oo ah casharka 8aad maadada xisaabta kana mid ah casharadii taxanaha ahaa ee ka baxayay shabakada Moonlight Academy. casharka maanta wuxuu la xiriiraa casharkii hore oo aan ku soo baranay addition. casharkii hore haddii aad xasuustid waxaan ku soo qaadanay raadinta wadarta tirooyinka. casharka maantana waxaan ku baran doonaa raadinta wadarta tirooyinka saddex godle ah. casharkan waxaan ku qaadan doonaa tusaalooyin, kadib waxaan idin diri doonaa layli. insha Allah isku day inaad ka soo shaqaysid layligaas. isugeynta oo qaadasho lahayn saddex godle ah. isugeynta waxaan u kala bixinaynaa laba qaybood: isugeyn qaadasho leh iyo isugeyn qaadasho lahayn. isugeynta qaadashada lahayn waa tirooyin la isku daray. tirooyinkaas markaad isu geysid wadartooda ma gaarayso 10. isugeynta qaadashada lehna markaad isu geysid tirooyinka wadartooda waxay gaaraysaa 10. marka mar walba waxaad qoranaysaa wixii raaca 10ka kadibna halka waad qaadan doontaa. marka casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa isugeynta oo qaadasho lahayn saddex godle ah. haddii aadan weli fahmin waxaan rajaynayaa inaad ku fahmi doontid tusaalooyinka aan bixin doono. tusaalada koowaad ayaa waxay noqonaysaa 430 lagu daray 212 lagu daray 653. marka tirooyinkan oo dhan haddii aan fiirino waa saddex godle 4 3 3. tirooyinka sida loo akhriyo hore ayaan usoo baranay. haddii aan fiirino tiradan waa 430 mise 433. godkan waxaan dhahnay waa godka koowaadka, kana waa tobanaad, kana waa boqolaad. marka tirooyinkan oo dhan 433 212 653 tirooyinkan oo dhan waa saddex godle, waayo waxay gaarsiisan yihiin ilaa iyo 100. marka 100kana haddii lagu daro godka koowaad oo ah godka boqolaadka waxay noqonaysaa saddex god. waxaan rajaynayaa inaad fahantay. marka waxaan rabnaa inaan isu geyno tirooyinkan oo dhan. 430 lagu daray 212 lagu daray 653. tirooyinkan ayaan isku dari doonaa. saddex haddii aan ku darno 2 waa imisa? waa 5. 5 haddii aan ku darno 3 waa imisa? waa 8. marka waxaan qoranaynaa halkan 8. mar walba tirooyinka markaad isku daraysid waxaad ka bilaabaysaa dhanka midig. tiro walbana hoosteeda ku qor natiijada kuu soo baxday. ha ku qorin 8ka halkan, midka kalena ha kusii qorin halkan. waa inaad isku aadisaa. godka tobanaadka haddii aan aadno waa 3 lagu daray 1 sidaan waad ognahay waa 4. 4 haddii aan ku darno 5 waa 9. marka waxaan qoranaynaa 9. 4 lagu daray 2 waa imisa? waa 6. 6 haddii aan ku darno 6 waa 12. marka 12 labada halkan ayaan ku qoran doonaa, halka 10ka aan ku qoran doono halkan. marka waxay noqonaysaa 12. labada waxaan ku aadinay halkan, halka oo ah 10kana waxaan ku aadinay banaanka. marka waxaa inoo soo baxay sida loo akhriyo tirada waan garanaynaa. waxaan ogaanaynaa godkan koowaad oo ah 1 ayaan ogaanaynaa godkiisa. kadib waa inoo sahlanaanaysaa inaan akhrino tiradan. 8 ayaan kasoo bilaabi doonaa. 8 waa koowaad, 9 waa tobanaad,
labana waa boqolaad halna waa kumaad marka waxaan leenahay hal markaan akhrino waxaan raacinaynaa kun marka waxaan leenahay kun laba boqol sagaashan iyo sideed kun laba boqol sagaashan iyo sideed saddex haddii aan ku darno labo waa shan shan lagu daray saddex waa sideed saddex lagu daray hal waa afar afar lagu daray shan waa sagaal afar lagu daray labo waa lix lix loo geeyey lixna waa 12 okay waxaan sii aadi doonaa tusaalada labaad 318 lagu daray 421 lagu daray 730 tanna waxay la mid tahay tan marka tirooyinka markaan isku darno wax qaadasho ah ma lahan yani waxaan ula jeedaa markaan isku darno tirooyinkan oo dhan godka koowaad markaan isku darno saddexdan god yani tirada inoo soo baxayso ma gaarayso 10 hadii ay gaari lahayd 10 waa isu geyn oo qaadasho leh laakiin hadii aysan gaarin 10 waa isu geyn oo qaadasho lahayn marka tirooyinkan oo dhan aan halkan ku qori doono kulligood ma lahan qaadasho marka sababtaas awgeed ayaan ugu soo qoray waa isu geyn oo qaadasho lahayn saddex godle ah waa isu geyn oo qaadasho lahayn oo saddex godle ah okay sida caadada ahayd waxaan ka bilaabi doonaa dhanka midig waxaa xiga 8 hal iyo eber marka waxaan isku daraynaa 8 lagu daray hal waa imisa waa 9 9 lagu daray eber waa imisa waa 9 sax okay waxaan isku dari doonaa godka labaad oo ah tobanaadka waxaan leenahay hal lagu daray labo waa imisa waa 3 sax 3 lagu daray 3 waa imisa waa 6 marka waxaan qoranaynaa 6 sida aan u jeedno tirooyinkan oo dhan markaan isku darnay yani tiro gaartay ma lahan 10 hal lagu daray labo waa 3 3 lagu daray 3 na waa 6 3 lagu daray 4 waa imisa 7 7 lagu daray 7 waa imisa waa 14 marka tii hore hadii aan ku laabano 12 ayaa inoo soo baxday labada waxaan ku aadinay safka koowaad halkan waxaan ku qornay banaanka si la mid ah tanna sidaas ayaan sameyn doonaa marka 3 lagu daray 4 waa 7 7 lagu daray 7 na waa 14 marka halkan waxaan ku qoran doonaa 4 kadib halkan waxaan ku qoran doonaa banaanka ayaan ku qoran doonaa marka waxay noqonaysaa sida tan 14 okay aan akhrino si aan u akhrino waxaan soo ogaanaynaa godka halka ayaan soo ogaanaynaa kadib waan akhrin doonaa waxaan ka soo bilaabaynaa 9 godka 9 waa koowaad 6 na waa tobanaad 4 na waa boqolaad halna waa kumaad marka waxaan leenahay 1469 1469 waxaan rajaynayaa inaad fahantay weli haddii aadan fahminna tusaalada kale ayaan rajaynayaa inaad ku fahmi doontid 611 lagu daray 116 lagu daray 722 waxaan ka bilaabaynaa dhanka midig sida caadada ahayd hal lagu daray 6 waa 7 7 lagu daray 2 waa imisa 9 waa sax hal lagu daray hal waa imisa waa 2 sax 2 lagu daray 2 na waa 4 waa sax 6 lagu daray hal waa 7 7 lagu daray 7 na waa 14 marka afarta halkan ayaan ku qoran doonaa waxaan la safi doonaa safkan halkan waxaan ku qoran doonaa banaankan marka waxay noqonaysaa 14 si aan u akhriyo waxaan soo ogaanayaa godka halka kadib waan akhrin doonaa 9 waa koowaad 4 godkeedu waa tobanaad 4 godkeedu waa boqolaad halna godkeedu waa kumaad marka waxay noqonaysaa 1449 tusaalada afaraad oo ah tusaalada inooga dambeysa ayaan halkan ku qaadan doonaa 101 lagu daray 122 lagu daray 224 waa isku mid kuwii hore sidaan ugu soo shaqeynay
ayaan ugu shaqayn doonaa kuwana. Mar walba waxaan ka bilaabaynaa dhankan midig. hal lagu daray labo waa imisa? Waa 3. 3 lagu daray 4 waa 7. marka waxaan qoranaynaa 7. eber lagu daray labo waa imisa? Waa 2. 2 lagu daray 2 waa 4. waa sax. hal lagu daray 1 waa imisa? Waa 2. 2 lagu daray 2 waa imisa? Waa 4. waa sax. marka halkan ma gaarin 10 ma gaarin, marka waxaan leenahay kaliya 4 waxaan ku qoranaynaa halkan. marka waxay noqonaysaa 4. si aan u akhrino waxaan soo ogaanaynaa 4 godkeeda kadib waan akhrin doonaa. godka 7 haddii aan ka bilowno waa 1aad, godka 4tana waa 10aad, godka 4ta kalena waa 100aad. markaan akhrinayno waxaan leenahay 447. 447. waxaan rajaynayaa inaad fahantay casharka. waxaan usii gudbi doonaa layliga casharkan. insha Allah isku day inaad ka soo shaqaysid layliga oo aad soo gudbisid su'aalahaas jawaabahooda. layliga casharka. su'aalahan sidaan horey kugu sheegay ka soo shaqeey oo soo gudbi. waa lagaaga baahan yahay su'aal walba jawaabteeda. marka layliga waa kan. waa kuwii aan hadda soo baranay, waa kuwo la mid ah. marka ka soo shaqeey insha Allah kadibna soo gudbi. su'aasha 1aad, su'aasha 2aad, su'aasha 3aad, su'aasha 4aad, su'aasha 5aad, 6aad, 7aad iyo 8aad. casharka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdikariin Xasan. waxaan ku kulmi doonaa casharkan casharka xiga. la soco casharka xiga. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.